السلام عليكم Soomaaliya dal laga tirtiray khariirada caalamka waxa aanu helay nuqul u diyaariyay qoraal lagu magacaabo Samiir Amiin ee Masriga ah Samiir waxa uu ahaa indheergar dhaqaaliyahan fikra iyo naaqid micno leh oo wadanka Masar ka isirsan rashahaas haysta Faransiis waxa uu wax ka qoray oo si xoogan u faaqiday waayaha iyo aayaha ummadda lama ooyaanka ee la gumaysto buugiisa loogu magac daray The Long Revolution of the Global South wuxuu u gaar yeelay milicsiga iyo micnaynta halganada iyo kacakufka dunida koonfureed buuga xoogiisu wuxuu afka Faransiiska ah ku baxay 2008 laakiin qoraaga oo mootan ayaa 2019 loo bedelay af Ingiriisi hadaba cutubka uu Afrika kaga hadlayo waxa ku jirta qayb kooban laakiin kaalin gal ah oo ku gorfeynayo Soomaaliya intaas ayaan halkan ku soo gudbinaynaa waxaan gartay inay aad u khosayso daawadayaasha Soomaaliyeed ee si uu u danaynayo fahmidda xaaladda qaranjabkii iyo kala irdhoobidii Soomaalida Soomaaliya waa tusaale kale oo argagax leh oo loo soo qaadan karo bulsho burburtay oo shisheeyay kalkaalnimo ay si kasta u dumisay gaarsiisayna in wada jirkii ummadeed meesha ka baxo iyadoo waliba rajo laga qabin in wax hurusocod ah ay suuroobo sayeeshe Soomaaliya bilowgeedii waxay lahayd laba qodob oo anti u ahaa midi waa dadweynaha oo inkastoo uu reero iyo jufooyin u qaybsan yahay haddana isir iyo af ahaanba midaysan ahaanshahooda isir iyo af ahaaneed ma ahan carabnimo walow ay muslimiin yihiin waase Soomaalinimo in alif ba'da af carabida la adeegsana waxay u badan tahay in looga dan lahaa xoojinta dareenka ummadeed sababtaas baana ugu arkaa in lagu saxnaa jabku wuxuu u bilaabmay markii dabaqadii shisheeye kalkaalka ahayd ee talada haysay ay Soomaaliya ku dartay jaamacadda Carabta ee ay ka dhigtay in ay Carab yihiin dabcan ujeedada go'aankaas laga lahaa waxa uu ahaa mid janiskaad ah in afka loo dhigto qulqul lacageed oo Sacuudiga laakiin meel xun bay taasi ka degtay sheegashada carabnimada waxay beertay jahawareer waxayna burburisay micnihii is ahaanshaha ee beesha Soomaaliyeed waxayna shidaalisay in muhiimad buunbuunin ah la siiyo hay'adda reernimo iyo jufanimo carabnimada beenta ahi ummadda umay midayn sida zawraca Soomaalinimo u midayn kari lahaa taalidkeed waxayba isla markiiba noqotay xoog wax kala daadiya hantida labaad ee Soomaalidu lahayd waxay ahayd qodobkii hanti wadaaga oo ha iska nuglaadeen laga yaabi lahaa si kastoo uu xadidan yahay in uu abuuro xoojinta dareenka ummadnimo isagoo u yeelaya waji wadajir bulsheed ah laakiin doorashadani iskamay caabin talaabadii gacan ku samayska ahayd ee lagu doortay carabnimada iyo cadaadiskii Sacuudiga ee ku lamaana shirkii maxadka Afrika ee qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Muqdisho ku qabtay wuxuu ahaa goobihii sida dhabta ah looga dooday caqabadahan laba jibaaran dhan ummadeed iyo dhan bulsheedba wuxuu ahaa bar muhiimad muuqata u leh taariikhda aqooneed iyo siyaasadeed ee dalkan mufakkiriintii siyaasadeed ee ugu roonroonaa Soomaalida sida Maxamed Aadan Sheekh Ibraahim Meegaag Samatar iyo Maxamed Yuusuf Weerax hormuudna u ahaa casriyeynta qaranka ayaa si run ah inoo baray dhibaatooyinka jiifa ee aanay ciidi ka hadlin raggan mintidka ahi waxay isku darsadeen aragti ay ka haysteen ummadda Soomaaliyeed iyo hiigsi bulsheed oo horu socod ah waxay aaminsan yihiin dartii ayna u galeen xabsi dheer dabadeed Siyaad Barre oo wajahay Itoobiya oo markaa uu boqor ka talinayay Mareykankana taageero ka helaysay waxa uu iska dhaadhiciyay in uu garabka midowga Soofiyeed helayo waxa uu si kadis ah ugu dhawaaqay inuu hanti wadaag yahay isku jirkan janiskaadka ah ee lugaha adag ku taagnayn hanti wadaagnimo afka ah carabnimo gacan ku samaysa ah kaalmada ciidameed ee Soofiyeedka gargaarka maaliyadeed ee Sacuudiga ayaa u sabab ah baaba iyo burburka dhacay inta waxa dheer dhalaarta Itoobiyana iclaamisay in ay hanti wadaag noqotay Siyaad Barre waxa uu iska xayuubiyay tahaadkii hanti wadaagnimada waxauna u diga rogtay xerada Mareykanka kolkii xaaladdu sidaa noqotay markii nidaamkii dhaqaale ee gumaysiga cusub jidkiisa la raacay waxa dhaqaale burburkii dhashay si xoojiyay in uu guray isku daygii lagu dhisayay ummad uu dhexdeeda ka jiro waxun wada jir bulshadeed ah dagaal reereed baa qarxay Siyaad Barre oo markaa janiska ahaana waxa uu dan mooday in uu jufadiisa talada u gacan geliyo kuna koobo burburkuna wuu soconayaa waxa kale oo Muqdisho la igu marti qaaday mar uu ka dhacay shirweynihii ururka qaramada Afrika wax naf
leh shirweynaha kama xasuusto waayo eber ayuu ahaa masalooyinkii la igu soo qoray si aanu indheergaratada kale ee Afrika u wada faaqidno ajendaha shirka waa laga reebay halka xaal ku dambeeyay waa laga dhirigsan yahay Soomaaliya inta ay ku jilicday dagaal ogayaashii isku dul haystay ayay noqotay carrosan oo ku soo hirto kuna dhex abqaalmo islaamkii siyaasiga ahi kaasoo dalkii ku sii shalwiyay haadaan iyo fawdo tii hore ka daran jidkii ay xukuumaddii Siyaad Barre qaaday waxaan ku qeexay oo uu shabahay halaag gumayste bal u fiirso faahfaahin inta laga yaqaano kala daadashadii qaranka iyo ummadii Soomaaliyeed marxaladii koowaad ee jamhuuriyadda ee 1960 ilaa 69 waxay ahayd dimuqraadi ku dhisan doorasho xisbiyo badan walow uu gumaysiga cusubi raad ku lahaa waxaa dabadeed ka niyad jabay cid kasta oo wax weyn ka filinaysay gobonimada kadib sababtaas baa afgambigii Siyaad Barre dalka loogu soo dhaweeyay talisku shacbiyad ummadeed buu haystay seeska waxgalnimadiisuna waa guulihii uu xaqiijiyay 69 ilaa 82 talisku wuxuu dhidbay seeskii lagu caragadiyi lahaa ummadda Soomaaliyeed isagoo ku tuntuusaday tacliin lagu amba qaado afka ummadda arrintani waxay ahayd in la aqoonsaday xaqiiqada asaasiga ah ee sawraca ummadeed in Soomaalidu aanay carab ahayn oo ay tahay ummad Afrikaan ah Muslim ah oo leh dhaqan iyo af u gaar ah horumarka dhaqaale ay iska koobnaado ee dhanka adeegyada bulshadeed iyo dhanka maamulka xoogiisu ahaa waxa uu sal u noqday samaysanka dabaqada dhexe oo taliska sharciyad iyo waxgalnimo fiican siiyay hubaashii taliskani ma ahayn mid dimuqraadi ku ah halbeega galbeedka maadaama uu ku salaysnaa xisbi kali ah dhanka kalena ma wada furnayn hantigoosiga sidii looga yaqaanay taliskii kale ee Afrika ee ayna cidina ku tilmaami jirin in aanay dimuqraadi ahayn hase yeeshee talisku dimuqraadi ma ahayn marka micnaha koran lagu eego waxa hortaagnaa xaqiiqo taariikheed kaalinta ay reeruhu ku leeyihiin qeexida sawracyada badan ee ummadda Soomaaliyeed leedahay kala duwanaanshaha isirada ayaa talisku ku adkeysanayay in uu dafiro